السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale mid kamid ah qisooyinka cajaa'ibka ah ee aanu idinkaga soo xulno buugga qisooyinka cajiibka ah ee uu qoray qoraaga reer Kuwait ee yiraahdo Abu Dalal al-Hamarani. hadaba qisadan waa qiso dhaaftay, waa qiso cajiib ah. magaceeda qisada waxaa la yiraahdaa qisadii ikhraajul jin, jinnigii la soo saaray. wax badan waa maqasheen, jinaa laga saaray gabadhaas, jinaa galay, wuu ka baxay, waa laga saaray. kan qiso yaab leh oo loogu magac daray ikhraajul jin ayaan galaynaa maanta. runtii waa qiso cajiib ah. waxay dhacday sanadkii 2018. waxay ka dhacday magaalo yar oo dhanka waqooyi ka xigta caasimadda dalka Algeria ee Algiers. guri ayaa waxaa ku wada noolaa oday iyo xaaskiisa iyo weliba 3 gabdhood oo uu dhalay. gabadha weyn waa 35 sano jir, gabadha ku xigtana waa 32 sano jir, midda ugu yarna waa 25 sano jir. marka taqaaliidka ama dhaqamada iyo caadada wax u badanaa jira. dadka waxay leeyihiin caadaday leeyihiin, caadad macnaha dhaqamo iyaga u gaara qabaa'ilada gaar. marka qabiilkan ay ka dhasheen 3 gabdhood ee reer Algeria ee magaalada degan waxaa caado u ah u fiirsada gabadha weyn oo joogta inaanay gabadha ku xigta guursanin, tan ku sii xigta iskaba dhaaf. waa sida ay u kala weyn yihiin in ay u kala guursaa. midda weyn marka la guursado, tan ku xigta ayaa haddana la sugayaa way guursanaysaa, midda dambe markaasay guursanaysaa. waa fahamnay. marka waa taqaaliidooda ama dhaqamadooda ama dhaqan caadadooda waay, macnaha qabiilkaas ay ka dhasheen. waana dad muslimiina oo maaragtay meesha degan oo caraba, dhaqankaasay leeyihin. midda weyn marka iyadu ma shaqayso, guri joogto waaye, waana gabar aad u qurux badan. tan ku xigta waxbay baratay, waa macallimad, weliba dugsi sare oo magaalada ku yaala ayay wax ka dhigtaa. midda kale waa 25 jir, iyaduna waxbarashada way iska daysay, guriga iska joogtaa. marka midda dhexe kaliya ayaa shaqaysa. tan weyn waxaa leedahay Kawthar, tan ku xigtana Karima, tan kale saddexaad magaceeda qisada laguma sheegin. marka labadaasaa isku xiga. waaye muddo markii la joogay waa la weynaaday. markaan 35 iyo 32 iyo haddii ay gabdhuhu gaaraan dee horey u socdeen, waqtigoodu waa iska xadidan yahay gabdhaha ay wax ku dhali karaan. tii marka macallimada iskuulka ka ahayd ayaa mid kale oo iskuulka macallimad ka ah waxay tiri, waree adiga kaalay maxaa u guursan weysa? see u guursadaa tiri. aniga walaashay iga weynaa joogta Kawthara. 100 nin waa soo doonatay. haye war nin lacag leh, nin wax bartay, mid jaahil ah, mid xamaali ah kulli waa soo dooneen. haye may kan ima anfacayn, kan luqadiisa fahmi waaye, macnaha qaabka u hadlayo qaab aniga maaragtay aan fahmi kara ma. waaba kibirsantee tiri. walaalay marka anagii dhan waana hoojisay, si kasta ayaa la war ninkan guurso, kan maya ii kaadiga kayga waa dhiman yahay, mid aniga waxaan doonayaa aniga dookhayga ah. walaalay maxaa sameeya? warwaran kuu sheegay tiri. haye hadda ka horaa gabar saasee blaayo oo meel blaayo degan iskuulka noogu timaada ma garanaysaa? haa walaasheedaa saasoo kale noqotay, ka weyn way guursan weys. haye
shiiqii heblaaye ahaa oo tuuladaa joogay haye shiiqaasaa soo qur-aan saaray markaa qur-aanaa la saaray jinniyaa ku jiruu yidhi jinkii markii jinkii laga saaray furdug uu baxay jinkii ninkii ugu horreey u yimaadaa guursaday culayskii dhan marka wuu kala furmay gabadhii kale way guursatay ee gabadhan jinaa ku jiree inta kaxaysid ninkaa u geey gabadhii marka fikraddii soo qaadatay culaysna way ku tahay tan way socon laadahay iyadoo way guursan lahayd marka waxaa leedahay jinnigii way aamintay tan marka way soo baxday gurigiiya timid hooyadii iyo gabadhii yareeday sheekadii ka dhaadhicisay way la qaateen waxay tiri waa run hooyadii waxay tiri waxaanu hadda ka hor amba waa maqlay jinka inuu naagaha ka hor joogsado inay guursadaan nin kasta uu ku diro hadduu jin ku jiro waxaas ma shaqaynayaan marka hawshan waa gelaynaa waaye aabba yaa loo sheegin odagooda iska weyn oo iska waayeela waaye isagoo iska yaa loo sheegin laakiin Kawthara sidee looga dhaadhicinaa in ay uu jinni ku jiro oo waxa dhan oo xanibaa gabdhahan uu jinkaas yahay mid kale kariimada waxay tiri hooya waa u sheegaynaa Kawtharadii waxa la yiri walaalay shiiqaas lagu geer maxaa shiiq laga doonaa tirani jina kugu jiro la hawla wala quwwata jikito iga soo galay horaniga jin ma u jira walaalayaal iga hara maamadii iyo gabadhii iyo tii kale waxay soo istaageen jina kugu jiro waxa nimanka u disnimakan oo dhan ma wada xumaa سوى تكاس والغاس قراساريا وروا نيجي جن إماهيو مية محمد يا أبو فرقة طورت قبلها واحد نبتتر ما كورست ننواي ماذا وقصاد دونا وهتيري سانيكس قبلها أنا ويكودا بفايسين ويكورس لهين مرهورة وهي أبتي قبل محمد قبله كل صفع لو صوغل مالة الدب وحي اسكا اوغولات برك waxay tir waaya la keen sheeqaas oo arkay waa la soo raacay marka gabadhii kariimada tii ka yareed Kawtharada maamadii waa la soo raacay tig meesha way xogaa ka fogtahay tuulo amal u degan yahay sheeq waa loogu tagaa meesha jinki waxaanu saaraa lagu leeyahay sheeqi meel mudul amal u degan yahay guri oo yaro u degan yahay reerkiisuna meel kale ay degan yihiin marka waa meel baadiye camal ah asagu meeshaas mudulka ku jira dadka magaalada uu ka yimaado meeshuu ku qaabilaa assalaamu alaykum wa alaykum assalam sheekha usocno waa sheekha usuga dada kula jiray balaaka fariis Kawtharadii waxay kadib waxa leedahay hooyo aniga jinnigu ma jiray ma idafti may waa kugu jiraa waxaa nimanka la diidayso waa jikaas maamooyinka qaar boogtahay qaar waxaa jira madax falluuqay qabaan madaxa waa ayoon wixii loo sheego way iska qaadanayaan waxaan masaxa maqalada waxa u sawirmaayo gabadhan inay caqabad ku tahay gabdhahan bis way yaabatahay Kawtharada ninkii sheeqa loogi ninkii sheeqa markay soo galeen saddexdii gabdhood soo dhalatay hooyadood sheeqiya mashfani mid kale sheeqa agtiisa fadhiya jira sheequ marka mudulka yaro ku jira imaamada madax ugu daboolan digsi weyn baal weyn oo caag weyn oo maartay tahliila ku jirta uu leeyahay oo dadka uu u qaybiyo iyo waxaasina meesha ugu jiraan hoos u fiirinayaa meesha la soo galay meesha dhan waa qaacaysa waxba la shidaya midkan meesha fadhiya oo khaadumka odaga oo sheekha ah maanta oo dhan waxbuu shidaya marka meesha soo gashay horta jawigaaba ku cabsanaysaaba bismillah guriga dhan waxa soo laalaada mara soo laalaada waa yaabas meeshii markii la soo galo horta walba waa cabsaday هاي السلام عليكم سو دواada
maxaa u socoteen maamadiyaa marka hadlaysa gabdhihii waa absayin sheekhana saanaa jirta gabadhan ilmaha noogu weyn gabdhaha noogu weyn ayaa maaragtay problemkan haystaa guurkiyaa ka madoobaaday nin lacag le ha dhihin mid kale ha dhihin marka gabdhihii kalena way xanibtayoo annaga dee caadadeenna waa saas haa waa gartay reer heblaayatiin soo maaha caadadiinu waa saas haye marka waxaan rabnaa gabadhan sidaan kuma fayoobee bal sheekhow inuu jin ku jiro ayaan u malaynaynaaye bal noo fiiri masaasa ahaa kitaab yaroo meesha u yaalay oo wax ku qoran aadan garanayn oo soo baxsada katub bismillah war waxaa ku jiroo yidhi haye jinka midka ugu weyn oo cirfiid kula hebelkaa la yidhaahdo oo ka yimid badda mediterraneanka ka yimid kaasaa ku jira wuxuu ka hortaagan yahay guurkii oo dhan wuxuu sidoo kale ka hortaagan yahay shaqadii ma shaqayso gurigee fadhidaa shaqa ma aado waa kaas maamadii way sii horkacday shiiqii balaayadaa sii horkacday haye marka maxaa lagu xalinayaa horta waa la qur-aan saarayaa yii qur-aanaan saarayna haye qur-aankii gabadhii sii jeesaa la yidhi kuwaan meesha fadhiyaan kii kale asaga waxbay akrinayaan qur-aan miyaa wax kale miyaa wab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  gabadhii kawtarada ahayd waa caadi wax kasoo dhaqaaqaya ma jiro markaasuu ma hadashaan ul yaroo baal yaroo meesha u taalo nag ku siiya markaas ilaa warigadaa us ilaahay ka cabso warjinka waayo marka dambe inta soo kacay uu ceejida iyo waxa uu qaba war gabadha aniga waxa leedahay war waxba ma qabo yaa lay dilin war waa beentis waa jinka ule markaasuu ceeji nab gabadhi naftaaba qabatay war aniga maxaa meeshaan ii keenteen hooyo miyaadnaa iga naxayn soo gabadhaada maahi war adinka soo walaashiin maahi war ninka iga qabtay ku haysaa ninka wuxuu leeyahay waa jinkay u kaadiya waa beentis nagtasoo ugu hayay gabadhii ayadoo gees u socota oo haddana wuxuu yidhi daawaa waxaan uga shubayaa sanka iyo afka ayaan wax uga shubayaa gurigaa geynaysaan qolkeedaa ku xiraysaan maalin labo ma soo baxayso kadib ayadoo jinkii ka baxay soo baxaysaa daawada kama dambaysta cirfiidkaa loo isticmaalayo maamadii dee waa iska aaminsan tahay ku shub ha naga baxee markaa gabadhu maxay qabtaa ma alerjigay qabtaa ma wax kaley qabtaa waxa lagu shubaa cadar iyo jidni iyo laysku daraa sanka lagaaga shubaayo af war waxaana aniga sanka lagama shubaa saadba qabtuu le gacmaha ka qabta salaantii gabdhaheedii gabadhii ka qabanaya ninkii kalaa yimid sanka uga shub afka uga shub qababababab laa xawla walaa quwata ilaa billah gabadhii ayadoo soconaysa oo lugaheeda ku socotay oo waa fiicanahay leh ay meesha tagtay iyadoo miirka ka tagaa taxi lasoo saaray say u soo wadeen odaga dee gurigiisu isaga jiraa aabi qolkeediiy ku tuureen albaabkiina waa soo xireen waxay aaminsan yihiin 2 beri iyo 3 beri inay qolkaa ku jirayso u jinka ka baxaayo gaajaa lagu dilaa leeyahay jinka alaabtan waa markaas iyadoo fiican soo baxaysa jin la'aan kurki algeli odayii marka subaxii markuu soo baxo banaanka imaado war adika waa idin jeedaay aaway gabadhaydii kawthara u leeyahay gabadha weyn waa kawtharada oo la taatikeeyay oo qolka ku xiran maamadii iyo gabdhaha marka way soo ogyihiin odayii marka sheekadan ma loo sheegayo odayaasha inta badan waxaan ma rumaysnaa islaamaha balaaya ka dhacday waxay leeyihiin maya meel meeshaan ay aaday way soo noqonaysaa maalinkii labaad maalinkii saddex maalin markii loo qabtay maamadii waxay tiraahday waa soo fiirinaynaa marka jinkii waa baxay albaabkii markii la soo furay markay keeneenaaba nafta ka baxday gabadha
markay qolka ku xireen sunay soo siiyeen waxbuu isugu soo daray ninka wuxuu yihiin ma yaqaanaan gabadhii afkiisa ko waxa uga soo shubay meesha lagu tuuray gabadhii oo qolka waxaa la soo galay jirkeedii cagaartay iyada dhan barartay dhimatay mar hore maamadii way soo carartay kuwii kale u timid sidee wax jiraan maxaa dhacay amay xanuunsatay ma dhimatay mise waa nooshahay ma naqaano dhakhtarka hala waco ambalaasa la waca meesha ambalaas isbitaal leedahay ambalaaskii soo orday shimee maxaa tahay waaba qarxi rabta barooreyba dhimatay laagtahay gabadhaan 3 beri 4 beri ka hore dhimatay maxaa dhacay waaye waaba naxem waa dhimatay yaa dilaaliye ma naqaano markii ambalaaska booliiska waan aljeeriyada dee wadan xoog la isku haysto waayo oo booliis iyo dawlad culus u leeyahay booliiska yimid odagii oo masaajidka ka yimid wuxuu ka warhelay gurigiisii ambalaas taalo baabuurkii booliiska yaalo odagii waxaa leeyahay maxaa dhacay maxaa ahayd guriga anaa le katiinad nab maxaa jira waayo islaantii labadii gabdhood kulli waa la xiray waa la soo qaaday gabadhii meydka ahayd faranjeerka la geliyay baarihiyaa yimid baaritaanaa la bilaabay odagii wuxuu yidhi war aniga waxaa wax ka ogaay male gabadhayda Kowthar aaw markaan iraahdo meelay jirtaa kana jirtaa ku hayaan war aniga waxba kama ogi hawshan oo guriga soo aday oday kama ayn odayga kala kana nin iska waayeelo iska xanuunsanaanay islaantii guriga mas'uulkayga ayado beesha waday iyo gabdhihii ayaga baan sheegay aniga gabadha aawayaan ku hayaa way soo noqonaysaa inta islaantii iyo gabdhihii la soo bixi islaantii marka waxay rabtaa gabdhahan yaryar inay safe garayso oo ay badbaadiso waxay tiri sidaasay wax u dhaceen ana kaxeeyay nin meeshaas joogaan u geeyay kana sameeyay arinta darteed aniga ma islahayn gabadhaada waa dhimanaysaa yooleydi masaasay ku dhimatay ninkii booliiska wuu yaabay oo maalinka raalli ka ahaa gabdhahan way raaceen ayagu laakiin wax shaqo kuma lahayn aniga kaaba ka ahaa hawshan haddii wax la dilaayo haddii wax la xiraayo aniga waayo booliiska waa yaabay gabdhihii mid loo wareystay tii yareedaa waxay sheegtay midda fikradda keentay inay tahay midda dhexe kariima midda la leeyahay hooyada ka dhaadhicisay iyada u sheegtay meesha saas ku dhacday maamadii marka waa la ogaaday inay gabadha badbaadinayso gabadhan kariima la leeyahay booliiskii waa baxay ninkii la soo qabtay waa lagu tuuray xabsigii ninkii afka iyo sanka uga shubay bahasha wallaahi balaayo kugu dhacday war waxaas u tagay dhile war ilaahay aamina waxaas meel badan Soomaaliya way dhooban yihiin waxaas quraafaadka naftiina ku halaaganina waxay idin soo qorqoreen isku qaaciya iyo ismariya iyo waxaan ha isku taabanina waraaniga arinkaas arin sahlan ma waliba sheekada marka dhageysanay Soomaaliya wax badan oo kamid ah way ka jirtaa sheekada adikuna waa soo qori doontaan wala soo kaxay maxkamadda la geeyay orto odagii maskiinka qaadiga waa sidaay waxa la ogaaday inuu san hawshan shaqo ku lahayn dadka shirqoolka sameeyay saddexdan inay waxa lagu xukumay gabadhii hawshan fulisay oo fikirka keentay 15 sano beerka loo dhigay xabsi maamadii 10 loo dhiibay tii yareedo xisaabta ay ku darsadeen 5 ayaa loo dhiibay odagina waa la sii daayay ilaa hadda marka waxa leeyahay Algeria waa laga sheekayaa sida ogtihiin isku dhaqan camal aan nahay carabtan iyo annaga iyo waxyaabaha ugu badan dhaqamadan iyo waxan waa isleenahay jina laga saaraya markaas qofkii asagoo fiyo waa nagta laga saaraya karbash inay ku waqaado qaar eeji ku dhagaan markaas yaabaysaa qofkii oo leh war aniga waxba igu jiraan waa kugu jiraan sida hadda gabadhan miskiinta ku dhacday Kowthar marka sheeko yaab leh runtii ahayd qiso cajiiba marka qisadeena toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa fadlan like gareeya oo share gareeya qisada
si in badan oo naga mid iyaguna ay u gaarto ay uga faa'iidaystaan. sidan waa muhiim waxyaabaha noocaasa qof ku dhaqaaqa daarta ka joog leh waxaas wax fiican ma haddaba noo soo qora sidan waxa aad ka fahamteen iyo waxa sida aad u soo qortaan fikradihiina aadan u jeclahay qof walba isku dayo fikradda iyo aragtidiisa qisadan wixii uu kala soo baxay ha noo soo qoro. haddaba like gareeya oo share gareeya qisada haddaad nagu cusub tahay si aad mar walba ula socoto qisooyinkeena cajiibka subscribe ka samayso channelkeena qisooyinka nadaara 2 iyo facebookeena inta aan mar kale kulmayna iyo qiso kale asxaabay nabadgelyo.